السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتكم حرن جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا ومهد سنتهين مانتا وقميص وأنا صدم كبشة تضباط جولاي سنة كلا بدو كون يلحيا لباتنك مقال كان وحربا إن ندي كل وداجو شلي جودجا أمنيجا جودها أقل كسنة كأي وحى أي ويرين دكتور أنتوني فاوجي واتقنا إن كان حلقي كورونا فايروس دكتوركي سؤالها ugu badan ka jawaabayay arrimaha la xiriira cudurkaasi coronavirus-ka haddaba shalay markii Congress-ku ay u yeereen dhammaanba su'aalihii la weydiiyay waa uu diiday in uu ka jawaabo sababtu maxayse tahay qodobka dastuuriga ah oo adeegsaday maxayse tilaabaha oo guddigaasi ay ka qaadi karaan ninkan Anthony Fauci todoba madaxweyne oo kala duwan ayuu la soo shaqeeyay laakiin maxay tahay sababta su'aal loo gelinayo qaabka uu u maamulay fayraskii coronavirus-ka oo ku dhawaad muddo 3 sano caalamka halakeeyay arintaasina waan idinla wadaagaya madaxweyne Trump oo ka soo hadlay arintii shalay aan idinla wadaagay oo ah ninka uu magacaabay wasiirka cadaaladda oo 2 senator oo Republican ah ay ka soo horjeedaan maxay tahay sababta Trump hadda uu u leeyahay waxa laga yaabaa inaan magaciisa dib ula laabto magacaabistiisa kadibna 2 senator November doorashada marka ay meesha ka baxaan kadib uu doonayo haddana inuu mar kale dib u soo magacaabo wasiirka cadaaladda maadaama senator isaga taageersan ay aqalka sanadka ay ku soo biirayaan arintaasina waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhaw markii coronavirus-ka ama COVID-19 pandemic waxaan ognahay in horaantii sanadkii 2020 uu bilaabmay isla markaana la dhahayay shaybaar Wuhan ku yaala Shiinaha ayaa uu ka soo baxsaday viruskan oo xayawaan ayuu ka yimid kadibna bini'aadamka ayuu u soo gudbay waa kii caalamka kala xiray wax diyaaradaha haysan jirin iskuuladii la xiray ganacsiyadii la xiray dadka la kala fogaanayay maaskaraadii la qaadanayay malaayiin qof ay ku dhinteen viruskaasi ama cudurkaasi coronavirus-ka haddaba Dr. Anthony Fauci waxa uu ahaa dhakhtarka guud ahaan caalamka ama Mareykanka caan uga noqday inuu ka hadlo viruskan coronavirus-ka maadaama uu madax ka ahaa macahadka la yiraahdo National Institute of Allergy and Infectious Disease oo NIAID loo soo gaabiyo isla markaana markii viruskan uu bilaabanayay wadanka waxa madaxweyne ka ahaa Trump laakiin bila kadib Biden ayaa haddana wadanka madaxweyne ka noqday marka labadoodaba waa uu la soo shaqeeyay shalay marka guddiga amniga gudaha ee aqalka sanadka ayaa u yeeray si ay su'aalo uga weydiiyaan in wax la qariyay viruskan halka uu ka yimid iyo sidoo kalena sababta Mareykanka loo kala xiray taasi oo sababtay in caruur fara badan waxbarashadoodii dib u dhac ku yimaado marka guddigu marka ay u yeereen Dr. Anthony Fauci waxa la socday qareenkiisa waxaana lagu yeeray qareenkiisa adiga ma hadli kartid halkaada waad fadhin kartaa waxa su'aalaha la weydiinaya Dr. Anthony Fauci marka guddigaasi waxa gudoomiye ka ah Randy Paul oo Republican ah oo Kentucky laga soo doorto marka qofka loo yeeray ka hor inta aan su'aalaha la weydiin hadal ayaa la siiyaa inuu hadlo marka hadalkiisi ayaa waxa Dr. Anthony Fauci uu ku yeeray waxa Randy Paul oo gudoomiye ka ah guddigan maanta ii yeeray muhiimadiisu ay tahay in aniga uu dambi ii yeelo oo afkayga ka helo wax uun dambi ah taasi oo xabsi aan ku mutaysan karo haddaba waa kan Dr. Anthony Fauci oo hadalkiisi furitaanka sidaasi ku dhahay The sole reason he is calling me before this committee is to get me to say something, anything that could vindicate his repeated public pledges that I end up, in his words, quote, behind bars. markaas kadib Dr. Anthony Fauci xubnaha guddiga oo Republican iyo Dimuqraadiba isugu jiray 100 su'aalood ka badan ayay weydiiyeen laakiin waa uu diiday mid ka mid ah in uu ka jawaabo qofku waxa jirta xuquuq dastuuri ah oo uu leeyahay oo Bill of Rights ka ku jirta taasi oo ah haddii uu u maleynayo in hadalladiisu isaga loo adeegsan karo oo dambi ay ku noqon karaan in uu adeegsado xuquuqdiisa qodobka shanaad ee dastuurka ku jirta oo la yiraahdo Fifth Amendment marka qofku waxa uu dhihi karaa ma doonayo inaan ka jawaabo su'aashaasi amaba waa uu ka aamusi karaa wuxuu leeyahay pleading the fifth marka Anthony Fauci waxa uu dhahayay markii aan la talin ka helay qareenkayga waxaan go'aansaday inaan adeegsado qodobkayga dastuuriga oo ah qodobka shanaad ee dastuurka
oo ah pleading the fifth amaba qofku waxa uu xaq u leeyahay inuu iska aamuso uusan su-aashaasi ka jawaabin. marka waxaa la leeyahay 110 mar ka badan ayaa su-aalo la weydiiyey, mar kastana waxa uu dhahayay I'm pleading the fifth, waxaan adeegsanayaa xuquuqdayda dastuuriga oo ma doonayo su-aashaasi inaan ka jawaabo, taasi uu ugula taliyey qareenkayga. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. haddaba marka qareenka la socday Anthony Fauci ayaa gudoomiyaha guddiga Rand Paul waxa uu uga digay in uusan hadlin, marka dhowr jeer ayuu hadlay. markaas kadibna gudoomiyaha guddiga Rand Paul waxa uu ciidamada booliska uu ku amray in ay ka saaraan xarunta su'aalaha lagu weydiinayay Dr. Anthony Fauci. haddaba arrintaasi sida ay u dhacdayna ila daawada. I said, sit quietly, you are not recognized. Another word and you're gone. Security, please remove him from the room. Dr. Anthony Fauci markaa su'aalaha la weydiiyo la yaab kala waxaa ka mid ah senatarka laga soo doorto Missouri oo la yiraahdo Josh Hawley ayaa waxa uu weydiiyay su'aalo fani ah. waxa uu yiri bal maanta maalinta ay tahay noo sheeg. markaas kadib xitaa waa uu diiday su-aashaasi inuu ka jawaabo oo waxa uu yiri waxaan adeegsanayaa xuquuqdayda dastuuriga. waxaa la weydiiyay tayga aad wadato midabkiisa noo sheeg, sidoo kale ayuu ku jawaabay. marka Josh Hawley waxa uu yiri waxa aad caan ahayd xilligii coronaviruska uu jiray oo Anthony Fauci qoraallo maalinlaha uu qori jiray, hadda la helay uu leeyahay waxaan ahay warbaahintu magacayga ayay hadal hayaan guud ahaan caalamkana waxaan ka ahay warbaahintu magacayga ayay hadal hayaan guud ahaan caalamkana waxaan ka ahay qof caan ah oo xitaa dad caan ah oo Mareykan ayaa isoo wacaya si ay talooyin ii weydiistaan amaba casho igu casuumaya. marka wuxuu yiri shacabka Mareykankana waa diidan tahay in aad uga jawaabto su'aalahan, isla markaana waxaad markaasi ahayd qof caan ah. Nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc? Let's try something. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie are you wearing? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer. You wanted to be on TV. You wanted to be the sun god of science. You could sit for InStyle magazine, but you can't answer questions for the American people. sidoo kalena waxaa jirta in gudoomiyaha guddigaasi Rand Paul uu ku yiri Anthony Fauci maadaama baaritaan ay Congress-ka ay wadaan aad ka hortimid arrintaasi cawaaqib ayaa ka dhalan karta. marka guddigu toddobaadka soo socda ayay u codayn doonaan in ninkaasi sharciga lala tiigsado, laakiin wasaaradda cadaaladda ayay u taalaa inay dacwad ku soo oogto iyo in kale. laakiin sidaasi ayuu yiri Rand Paul markii uu ku dhahayayna waatan. It's against the law to obstruct an investigation of Congress. There will be repercussions to your refusal to testify today. laakiin xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira guddiga amniga gudaha ayaa iyaguna Dr. Anthony Fauci difaacay, waxayna yiraahdeen shacabka Mareykanka waxaad ka difaacday qatar fara badan oo ku soo wajahneed, waxaana u aragnaa arrintan xisbiga Republicaanka ay wadaan in ay tahay arrin siyaasadeed. The campaign to vilify you, Dr. Fauci, is just one part of this larger campaign against science and facts, a campaign that has made Americans less safe. I fear the intent of this hearing is only meant to further a purely partisan agenda. Dr. Anthony Fauci waxaa cafiyey madaxweyne Biden markii xilka uu ka dagayay. Dr. Anthony Fauci waxa uu iscasilay bishii December sanadkii 2022 marka madaxweyne Biden ayaa cafiyey. marka 11 sano oo ka horeysay sanadkii 2025 wax dambi ah looma raacan karo. marka madaxweynuhu marka uu xilka ka dagayo awood ayuu u leeyahay in cidii uu u arko in isaga gadaashii la maxkamadeynayo xisbiga kale uu bartilmaameedsanayo inuu cafis u fidin karo. marka Biden markii xilka uu ka dagayay dadkii cafiska u fidiyay ayaa Dr. Anthony Fauci oo kamid ahaa. Anthony Fauci marka waxa uu la soo shaqeeyay 7 madaxweyne oo kala duwan laga soo bilaabo Ronald Reagan, George W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Obama, Trump oo 4 sano hore uu la soo shaqeeyay walow markii dambe coronavirus markii uu dhashay isku la dhaceen, Joe Biden oo sidoo kale uu la soo shaqeeyay. marka mid kastana la taliya ayuu ahaa waxyaabo fara badan ayuu kala talinayay sida aad halkan aad ka aragtaan ilaa iyo December
sanadkii 2022 markii uu iscasilay. marka arrintaasina waxay ahayd arrin la yaab leh oo shalay Kongareesku su'aalihii ay weydiiyeen 100 jeer ka badan uu diiday xitaa mid kamida inuu ka jawaabo. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale arrintaasi oo kale sameeyay. Trump waxaan ognahay markii dacwadu ay ku socotay xilligii sanadkii 2022 in loo yeeray New York si su'aalo uu uga jawaabo la xiriira musuqmaasuqa dhinaca ganacsigiisa. marka hal su'aal ayuu Trump ka jawaabay markii magaciisa la weydiiyay. laakiin madaxweyne Trump 440 jeer ka badan ayaa isaguna xuquuqda dastuuriga uu isticmaalay oo pleading the fifth amaba uu yiri waxaan adeegsanayaa xuquuqda dastuuriga oo ma doonayo inaan su'aalahaasi ka jawaabo. marka qofku xaq ayuu u leeyahay haddii uu u arko su'aalaha la weydiinayo in isaga ay dambi u yeelayaan inuu yiraahdo kama jawaabayo oo xuquuqdeeda dastuuriga ayaan adeegsanaya. ugu dambeyntii madaxweyne Trump ayaa waxa uu maanta bartiisa Truth Socialka uga soo hadlay arrintii shalay aan idila wadaagay oo ah in laba xubnood oo senataro oo Republican ay diidan yihiin in ay ansaxiyaan wasiirka Trump uu soo magacaabay wasaaradda cadaaladda. madaxweyne Trump qoraalkiisa waxa uu ku yiri Todd Blanche oo ninka wasiirka cadaaladda uu soo magacaabay waa nin xidiga isla markaana qof kasta waa og yahay inuu noqon karo mid kamida wasiirada cadaaladda ee ugu wanaagsanaa taariikhda ee soo maray wasaaraddan. laakiin si kastaba haatee waxa uu yiri John Cornyn oo Texas laga soo doorto iyo Tom Tillis oo laga soo doorto North Carolina kuwaasi oo anigu aan diiday inaan taageero isla markaana damacoodii siyaasadeed tilaabooyin aniga aan sameeyay uu ku soo gabagaboobay ayaa waxa ay diidan yihiin in ay u codeeyaan ninkan aan anigu soo magacaabay. laakiin xasuusta ayuu yiri labadooduba Cornyn iyo Tillis waxa ay u codeeyeen Mary Carlick waa wasiirka cadaaladda ee Biden. marka Trump waxa uu sheegay iyo waliba kuwa kale oo aan doonayn magacooda inaan sheego. marka Trump waxa uu sheegay in aysan asaga ku adkeyn in uu si ku meel gaar ah magaciisa ula laabto magacaabista uu soo magacaabay Todd Blanche inuu wasiirka cadaaladda uu noqdo. marka wuxuu yiri waqtiga saxda ah ayaan magaciisa dib ugu soo celin doonaa marka Cornyn iyo Tom Tillis xafiiska ay ka tagaan. labada nin Tom Tillis oo North Carolina laga soo doortay waxa uu yiri isma soo sharaxaya November halka sidoo kalena John Cornyn Trump xubin uu taageeray ay oo doorashooyinka Israa'iilka uu uga guuleystay. marka Trump waxa uu doonayaa labada nin xafiiska marka ay baneeyaan oo laba senator oo isaga taageersan ay yimaadaan inuu mar kale Todd Blanche wasiirka cadaaladda u soo magacaabo markaasina cod waa uu ka helayaa guddiga cadaaladda ee aqalka sanadka iyo waliba sanadka. laakiin haddii doorashooyinka looga guuleysto oo sanadka aqlabiyadiisa looga guuleysto isla markaana aqalka wakiilada looga guuleysto arrintaasi sidoo kalena waa ay adkaan doontaa. marka Trump hadda waxa uu leeyahay waxa laga yaabaa inaan magaciisa dib ula laabto maadaama taageero uusan ka haysan xubnaha xisbiga Republikaanka gudihiisa. maanta ayaa la filayay guddiga cadaaladda inay u codeeyaan laakiin arrintii dib ayaa loo dhigay. labadan senator waxay leeyihiin wali waxyaabihii aan dalbanaynay ma uusan samaynin Todd Blanche. marka Trumpna sidaasi ayuu isaguna leeyahay. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo.